dowladda Turkiga ayaa la filayaa in horaanta bisha Abriil ee sanadkan aynu ku guda jirno ay xadhiga ka jirto saldhigga militari ay ka hirgelisay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya sida uu qoray wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo taliyaha ciidanka militariga ee dalkaasi ayaa waxaa lagu wadaa in booqashada ay ku imanayaan magaalada Muqdisho ay la xidhiidho sida ay xadhiga saldhiggaasi uga jari lahaayeen. saldhigga militari ee dowladda Turkigu ka dhisatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa ku baxay 50 milyan oo dollar iyadoona la bilaabay sanadkii 2015. saldhiggan ayaa sida lagu soo warramay waxa uu leeyahay 3 dugsi oo waaweyn oo midkiiba uu qaadi karo 1000 askari kuwaasoo lagu barayo arrimaha dhinaca militariga. dowladda dalka Turkiga iyo dowladda dalka Soomaaliya ayaa waxay yihiin dowladda dalka Turkiga ayaa saaxiibka aadka ugu dhow dowladda federaalka ee Soomaaliya marka laga reebo wadamada xiriirka kala duwan leh dowladdaasi.